السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته channel official fadlan inta ku cusub tahay channelkeena subscribe saar like share gambalaalkana ku dhufo si aad uga socotid fiidiyoda dambe aan soo gelin doono waxaan idin hayaa sheeko mid idin xiiso gelin doonto dhageysi wacan bari baa waxaa jiray nin la oran jiray boqor hayaag boqorka oo ahaa mid aan laga daba hadal bari dambe ayaa deegaankii waxaa u dhashay wiil aad u aqli badan oo raganimo ku dhamaatay boqor hayaag ayaa waxaa loo soo sheegay in wiilkan yar aqliga badan la wareegi doono boqortooyadiisa boqorkii markuu arrinka maqlay ayaa waxaa dhacday in wiilkii yaraa calool xumo u qaaday markaasuu isku dayay dhowr jeer in uu dilo wiilka laakiinse dhanka Ilaahay ayay ka suuroobi weyday oo boqorkii waa kari waayay in wiilkii wax yeelo waxaa jiray nin wadaad ah oo la oran jiray fiqishni waxaana uu wadaad u ahaa dadka gayga ku nool iyo boqorkaba maalin ayaa boqor hayaag wuxuu u yimi fiqishni kolkaas buu ku yiri war sheeqow boqortooyadayda waa u baqayaa ee qadaas aan ku ilaaliyo eedhig fiqishni ayaa yiri waa yahay goor boqor hayaag iyo fiqishni wada fadhiyaan oo qardaastii la qoraya ayaa waxaa u yimid wiilkii yaraa ee boqorku iska ilaalinayay markii uu soo ag fadhiistay ayaa boqor hayaag waxa uu yiri fiqishniyo wiilkan yar wax baan ka arko qardaasta ayuu cunee inaga fogee wadaadkii fiqishni ayaa yiri boqorow wiilku waa yar yahay oo waxba xadimaay iska daa markii uu wadaadkii qardaastii dhameeyay ayaa inta uu qardaastii iskarab dhigay isaga iyo boqorkii salaad galeen goortay salaad xidheen ayaa wiilkii intuu qardaastii qaaday afka galiyay wuxuu go'aansaday haday ilaawaan in uu qardaasta xado haday xasuustaana uu laqo markay salaadii dhameeyeen ayaa boqor hayaag qardaastii tabay fiqishni ayuu ku yiri qardaastii miyaad aragtay fiqishni ayaa ku jawaabay sootan iyada oo la laaban halkan dhigay boqor hayaag ayaa yiri dee hadda wiilkii yaraa ee ku lahaa uu cuni ayaa qaatay boqor hayaag iyo fiqishni ayaa wiilkii ku yiri war qardaastii keen yarow balse wiilkii yaraa qardaastii uu calalay oo uu laqay boqorkii oo markii horeba cabsi ka haysa wiilka talo ayaa ku cadaatay oo wax uu sameeyo ayuu garan waayay sidaasi markay dhacday ayaa boqorkii wuxuu yiri fiqishniyow qardaastii waa taa wiilka yar cunaaye mid kale eedhig fiqishni yaa yiri boqorow waxaan karaamo iyo burhaan lahaa waxaan isugu geeyay qardaastii hore marka haddaan mid kale ku sameeyo wax ay ku tarayso ma jirto kolka qardaas kale sameyn kari maayo boqorkii baa intuu carooday yiri hadda wiilkan yar ayaan dilayaa si aan qardaasta uga soo saaro calooshiisa fiqishni ayaa yiri boqorow aan ku duceynay wiilka yar ha dilin waxaa dhici doonta in uu isagoo dhulka u talin doono adiguna waad garab fadhiisan doontaa wiilkii yaraa goyaal dambe markuu weynaaday ayaa wuxuu noqday boqorkii deegaanka oo dhab ah isaga ayaana la wareegay boqortooyadii oo dhan fadlan subscribe saar channelkeena waa walaalaha channel official iyo sheekooyinka oga barateen Wave Mile.